waxaan xalay daawanayay Faysal Cali Waraabe oo maxad meel qalin jabina arday qalin jabisay oo wax baratay ka soo qayb galay nasiib daro isagoo odaya oo maanta 80 jira ama 90 jira waxa nasiib daraa ubadka qalin jabinaya inuu geliyo cadiifad iyo guubaabo inuu geliyo waxaan aad ula yaabay wuxuu yiri ma ogtihiin intuu ku celceliyay Soomaaliland maqas baa lagu googeynayaa Cabdilaahi Xaaji Cumar Cabay oo loo magacaabay safiirka dawladda federaalka ee Itoobiya ayaa buduminaya Maakirland oo Asanaag iyo Sool iyo Cayn baa la inaga dul dhisay intaynu inagu isku jeednay wuxuu casumay dhooba daarood wuxuu casumay Suldaan Hebel wuxuu casumay Suldaan Hebel taasi waxaan u arkaa dhinac waa ka guubaabo Soomaaliland sidii wax isaaq laga duminayo horta cadeeyay ama ay horta caruurta ku shubay mar labaadka Faysal iyo intii maciisa ee waliba waayeelka ee odayaasha ah waxaan leeyahay caruurta dhaxal xun ha uga tagina oo qabyaalad iyo cadiifad ha ku beerina dadkana ha isnacsiinina waxa weeye runtana ana sheegaya caawa bulshada Sool Sanaag iyo Cayn hadaan nahay 30 sanadood baad la idinka hayn inaad garataan Soomaaliland wala wada leeyahay iyo inaynu wax wada leenahay iyo inaad miiska dhigtaan oo aynu qaybsano intaba weydii ka suuroobi weyday waxa is haysta dhow 28 ka sanadood oo la konton beelood u kala baxay waa beesha isaaq waxa weeye Faysal birahan dambe wuxuu saarnaa madaxweynaha dawladda federaalka Cabdilaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi oo uu ku soo daray waxa weeye waxaan u arkaa arintiisu inay tahay cadi ama ku cunay ama ku ciideey annagu hadii aad diideen Soomaaliland la wada leeyahay oo aynu dastuurkeeda wax ku qaybsano saabi qaybsigii diideen oo kii ugu dambeeyay heshiiskii qaatumo iyo Soomaaliland aad dhagu jalaqsiin weydeen inaanu aayaha iyaga iyo xaqaya ka tasano xaq waan u leenahay Muuse Biixina waxaan ugu baaqayaa isaaq siyaasiyiintiis waxa ka hadlinaya oo ay garashadeedu ka maqan tahay wixii Soomaaliland afarta beelood ee kale inala lahaayeen baynu cuquba ku haysanaa adiguna wadadii hore u baad marisay saddexda wasiir ee odayaasha cidlada taagtayna annagaaba ku ogole iskaga jeediyo saddexda beelood oo isaaq ugu qaylabada badan ugu sadburi baan kulana Muusana waxaan leenahay markaad leedahay Soomaaliland waa la burburinayaa adiga burburinaya dooraad markaad Nairobi ka timi Soomaaliya badbaadinaya qolama jeerteen la shiray Axmed Madoobe aan la shiray waxa weeye ninku inuu meel fadhiista fiican kumishiga aad ka hadlayso de kumishiga waxa qoray 4 nin oo isaaqa oo aad ka mid tahay baa qoray dastuurnimaduna waxay cadaatay Soomaaliland dastuurkeeda inay ka weyntahay isaaqnimadu xagay kaga taala 4 nin oo isaaqi inay iyagu wax qaybiyaan oo kafad iyo miisaan ay saaraan waxaan leeyahay markaad leedahay riya raacow kanow de kiicida galawaad haystaa haddaad habar jecel doonayso inaad keeda ku darsato de kiidul mahatana waad qaadateen haydi deeqeen baanu idilana waxaan ku soo gabagabaynayaa war odayaasha waaweyn ee 80 jirada ah ee maanta u taliya hoggaanka u haya isaaq siyaasadda waxa weeye jaranjaradii casriga siyaasadda waa la qabsan weydeen qarniga lagu jiro waxaan anigu ku talin lahaaba waraadaad wixii idinku yeelateen 4 dhalinyaro oo jiilkan casriga la jaan qaad kara isaga dhiiba haddaad ku heshiin weydaana waxaad isku haysataan waa waxa idin lahayn 4 beelood ee kalena way tashanayaan waxaan ugu baaqayaa 4 beelood labada harti waqooyi Ciise iyo Samaroon war hadaynu inaynu wax wada yeelano beel quri diiday aynu tashanno oo shir isugu dhimaadna. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.